gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Diiriye ayaa waxa uu maanta soo kormeeray maktabadda casriga ah ee qaranka looga dhisayo magaalada Gabiley. Sidoo kale waxa uu kormeer noocan oo kale ah ku soo maray xarunta dawladda hoose ee degmada Gabiley. Kormeerkan ayaa waxa ku wehelinayay maayarka caasimadda gobolka Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Sidoo kale waxa uu soo kormeeray qaybo kamid ah laamaha dawladda ee ka howlgala degmada Gabiley. Barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye ayaa waxa uu maanta kormeer ku tagay dhismaha maktabad casri ah oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Gabiley, taasoo ay iska kaashanayaan xukuumadda dhexe ee dawladda hoose ee degmada Gabiley. Kormeerkan ayaa waxa ku wehelinayay maayarka caasimadda gobolka Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Sidoo kale waxa uu kormeer noocan oo kale ah ku soo maray xarunta dawladda hoose iyo xafiisyada cusub ee laga hirgeliyay. Waxa kale oo kormeer noocan oo kale ah ku soo maray qaar kamid ah laamaha dawladda ee ka howlgala gobolka Gabiley. Sidoo kale barasaabka cusub ee gobolka Gabiley iyo maayarka caasimadda gobolku waxa ay dhagax dhigeen dhisme lagu kordhinayo dhakhtarka magaalada Gabiley. ama horumarka golaha deegaanka ama dawladda hoose ee degmada Gabiley ay wado 14 bisha ilaa 15 bisha oo maanta ah xarumaha dhamaanteed uu sheegay duqo degmada Gabiley waxa weeyaan wax la taaban karo oo aan indhahayga ku soo arkay ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan ayay u socdaan. Waxaan jeclaan lahaa in dawladaha hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada ka dhinaana ay ku daydaan horumarka golaha deegaanka ee degmada Gabiley iyo guddida fulinta uu hogaaminayo maayarka Maxamed Amiin ama duqa magaaladu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wax qabadka ballaaran ee uu wado. Intaan leeyahay inay ku daydaan golaha deegaanka ee kalena waxaan baan leeyahay bal inay halkan timaadaano bal indhaysaan sida dhismayaasha ama horumarka ay golaha deegaanka ee duqa magaaladu hogaaminayo uu degmadu hogaaminayaa uu garwadeenka ka yahay ama uu hormoodka u yahay. يعني waa wax anigu aad iyo aad aan ugu diirsaday marka laga eego gobolka degmooyinkiisa dibadda insha Allah bidnillaahi kariin mashaariic badan bay ka wadaan taasna sida ugu dhaqso badan baan soo kormeerayaa. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa duqa sida wanaagsan ee hufan ee bilaadanimada iyo naxariista shacabka oo mas'uuliyadda iyo xilka saaran uu gudanayo. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. goobtan aanu joogno oo ah halkii uu ka socday dhismaha iskuulka farsamada gacanta ee laga dhisay gobolkan Gabiley khaasatan magaalada Gabiley oo ay dhisaso gacanta ku hayso dawladda hoose Gabiley. waa mashruuc aanu ku soo gabagabeynay mashaariicaha horumarineed ee dawladda hoose Gabiley ay ka wado gobolka Gabiley khaasatan inta ka dhex socota hadda magaalada Gabiley oo kormeer ku soo sameeyay gudoomiyaha gobolka. mudane gudoomiye hawshii aynu shalay toole soo bilownay oo aynu saaka oo taariikhdu tahay 15 soo gabagabeyn doono. runtii mashaariicaha soo aragtay waa mashaariicaha horumarineed ee dawladda hoose Gabiley ay wado meelahaanu iyagana sidoo kale mashaariic ka wadnay 2020ka saynu soo aragnay hadda ka hor waxaanu dhameynay 3 dhisme oo ay dawladda hoose Gabiley dhistay. qaybtii dhiiga baanka dhiiga duty room dhaqaatiirta loogu talagalay oo aynu isna soo kormeernay iyo sidoo kale dhismaan ugu talagalay talaagadii meydka oo hore uu inoogu caawiyay muwaadin Kuwaitiya. 3 dhisme dhamaantood way dhamaadeen. waxa harsanuun in balad banka insha Allah ka shaqaysiino oo qalabkii hadda gacanta lagu hayo on filay insha Allah kaydka u horeeyay inaynu inagu dhiiga aynu ku shubi doono si ummadda looga faa'iideeyo. intaasi kadib waxa wafdigani uu hogaaminayo barasaabka gobolka Gabiley uu kormeer ku soo maray degmada Togwa Jaale halkaas oo uu soo kormeeray mashaariic ay xukuumadda dhexe ka hirgelinayso gudaha magaaladaasi. barasaabka gobolka Gabiley oo ka hadlaya kormeerkan uu ku tagay degmada Togwa Jaale ayaa waxa uu yiri
kormeerkeennan aanu ku soconay kormeerkaygaanu ku soconay wuxuu daaraa kormeer aan ugu kuurgelayay intii aan gobolka la wareegay warasaabkii hore la bedelay aan dee bedelay waa sunnaha dawladnimada isbedelku waxa aan qaatay ama sida sharcigu yahay tahay in laamaha dawladda golaha deegaanka degmooyinka arrimaha bulshada dhaqanka intaba aanu ku urgolo siday wax u socdaan iyo kaabayaasha dhismaha laga wado ama horumarka ka socda gobolka aan meel walba istaago si aan u ogaado wax kasta oo dalka horumar ka socda iyo wax ka dhiman maadaama anigu mas'uuliyadii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu igmaday ma aha inaan xafiiskii la soo igmaday uu fadhiisto waa inaan shaqooyinkii la igmaday aan guto waajibaadkii aan u xilsaaraa la xilsaaray taasina waxa weeyaan wax waajiba oo la igu leeyahay taasi ka bacdi halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa warasaabka gobolka oo ay maanta ugu horeyso degmada Togo Jaale isagoo ku jira kormeerkiisii waxbarashada ee gobolka oo dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka ku marayo waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow degmadii Togo Jaale waa degmo ganacsi waa degmo qadiimiya waa degmo isku xidha Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ka jirta mashruuc aad u fara badan baa ka socda degmada waxa ka socda bangiga ganacsiga waxa ka socda xarun weyn oo degmada Togo Jaale aan u dhisayno waxa ka socda dabdamiska Mukhtaar Ibrahim Ariel TV gobolka Gabiley